magaciisa oo saddexan waa Shirali Fayzullah Oglo Muslimov oo loo yaqaan Shirali Muslimov. haddaba waa kuma Shirali Muslimov? Shirali Fayzullah Oglo Muslimov waxa uu ahaa nin ku dhashay tuulada Barzafo oo ku taala gobolka Buuraleyda ah ee Layrig ee bariga dalka Azerbaijan. warbaahinta Suufiyadku waxay sanadkii 1963 baahisay sheekadiisa iyadoo oo lagu sheegay in uu dhashay bishii March sanadii 1805. 1963 dawladda Suufiyadku waxay wajigiisa ku daabacday tigidhka boostada si ay dunida ugu muujiso sheekooyinka cajiibka ah ee Shirali Muslimov. kadib markii uu booqday Kalmaan Kasbiif oo ahaa wariye sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka rasmiga ahayd ee taasoo laga soo gaabiyay Telegraph Agency of Soviet Union ee dawladdii Suufiyadka. wariye Kasbiif wuxuu booqday tuulada Barzafo sanadii 1963 wuxuuna halkaasi kula kulmay Shirali Muslimov si uu waraysi ula yeesho sawirrana uga qaado, taasoo ahayd markii ugu horeysay ee kiiskii Muslimov oo caan noqday adduunyaduna ay ka warheshay noloshiisa. taasi waxay keentay in warbaahinta caalamku ay qaadaadhigaan hadalladiisa isla markaana su'aalo badan laga keeno sax ahaanta sheekadan. taariikh nololeedka qoyskiisa Shirali Muslimov wuxuu guursaday ugu yaraan 3 haween ah xilliyo kala duwan intii uu noolaa, sida ay sheegeen wariyihii la kulmay qaar ka mid ah qaraabadiisa. guurkiisii ugu dambeeyay waxay warbaahintu sheegeen in uu guursaday haweenay aad uga da'yar, isaga oo xilligaas cimrigiisu uu ahaa 110 sano, taas oo noqotay arrin cajiib ah oo lagu qoray wargeysyadii Suufiyadka. wariyihii la kulmay wuxuu u sheegay in waqtigii uu aroosayay xaaskiisa dambe oo xilligaas garab taagnayd ay labadiisii waalidba noolaayeen. haddaba isweydii meeqa ayay jiri kareen labada waalid maadaama caruusku uu ahaa 110 sano jir. waxaa kale oo Shirali wariyihii uu u sheegay in walaalkiis ka weynaa uu ku geeriyooday da'da 136 sano. waxaa la wariyey in uu dhalay 10 carruur ah balse faracoodu uu gaaray 100 intii uu noolaa Muslimov. waxaa la sheegay in faraca awlaadiisu ay arkeen aabbayaal, awowayaal, abkow iyo abuulankoodu ahaa Shirali Muslimov. Master Muslimov wuxuu ku dhashay tuulada yar ee Barzafo ee gobolka Layrig ee bariga dalka Azerbaijan. waa meel buuraley ah oo cimiladeedu aad u wanaagsan tahay. waa dhul caan ku ah beeralayda iyo xoolo dhaqatada, noloshiisuna ay tahay mid xasiloon. waxaa la sheegay in Shirali Muslimov uu isla halkaas ku geeriyooday bartamihii bishii Sebteembar sanadii 1973 isagoo da'diisu tahay 168 sano. waxay sheegeen wariyayaashu in tuulada Barzafo uu ku beeran jiray dalagga noocyadiisa kala duwan, xoolahana uu ku dhaqan jiray. waxaa sidoo kale la xusay in cuntadiisu ay ahayd waxyaabaha dabiiciga ah sida caanaha xoolaha, gaar ahaan ariga, bariiska, cuntooyinka diir kale iyo khudaarta beerihiisa ka soo go'i jirtay kuwaasoo inta badan uu gacantiisa ku beeri jiray. sidoo kale wuxuu